kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal halkan waa channelka Gargaar Media Group qodobada maanta aan idin haynana waxaa kamid ah dowladda Soomaaliya oo dib u dhisaysa safaaradii ay ku lahayd dalalka caalamka dib u habeyn lagu sameynayo ciidamada booliska Soomaaliyeed maxay tahay sababta ka dambeysa khilaafka dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ka jira ICJ oo toddobaadka soo socda dib u eegis ku sameynaysa kiiska badda Soomaaliya ee Kenya iyo sidoo kale madaxweyne xaaf oo ku dhawaaqaya guddiga doorashooyinka iyo farsamada maamulka Galmudug intaasi waa qaar ka mid ah qodobada maanta aad daawan doontaan iyo kuwa kale oo xiiso badan haddii aad ku cusub tahay channelkan fadlan subscribe saaro oo furo gambaleelka lana wadaag asxaabtaada kale وهاجاكaynu ku bilowno dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dib u dhisaysa safaaradii ay ku lahayd qaar ka mid ah dalalka caalamka wasiirka arrimaha dibadda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cabad ayaa si faahfaahsan uga hadlay qorshaha dowladda ee dib u dhiska safaaradii ay ku lahaan jirtay dalalka caalamka Axmed Ciise Cabad wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dib u furista safaaradaha uu horseedi doono xiriir wanaagsan oo dowladaha ay la yeeshan doonaan Soomaaliya isagoo sheegay in Mareykanka uu dib u furay safaaradii Muqdisho 30 sano kadib madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo ka qayb galay shirkii golaha guud ee qaramada midoobay ayaa xariga ka jaray dhismaha safaaradda Soomaaliya ee Washington ee laga bixiyay lacag aad u fara badan dhanka kalena dib u habeyn ayaa lagu sameynayaa ciidanka booliska Soomaaliyeed taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Sareegaas Cabdi Xasan Maxamed Xajaar ayaa waxa uu sheegay inay wadaan qorshe dib u habeyn xooggan lagu sameynayo ciidanka booliska taliyaha oo u waramayay warbaahinta qaranka ayaa waxa uu intaas uu ku daray hadalkiisa inay ka qayb noqon doonaan dhismaha booliska Afrika oo haatan lagu asaasayo dalka Nigeria oo na direen saraakiil waxa kale oo uu sheegay taliyuhu in ay sare u qaadi doonaan tirada tayada gaadiidka isgaarsiinta iyo qalabka booliska si uu u yeesho awood intan ka balaaran taliye Xajaar ayaa waxa uu sheegay in ciidamada booliska Soomaaliyeed uu ka mid yahay Interpolka xafiisna ay ku leeyihiin magaalada caasimadda Muqdisho Sareegaas Cabdi Xasan Xajaar ayaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa intaas waxa uu ku daray in dhawaan ay magaalada Nairobi ka furi doonaan xafiis ay ku midaysan yihiin booliska bariga Afrika waxa uu sheegay in rajaynayaan in Soomaaliya madax ay ka noqoto hoggaanka wadamada gobolka dhanka kalena maxay tahay sababta ka dambeysa khilaafka dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka wasiirkii hore ee warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle ayaa waxa uu faahfaahin dheeraad ka bixiyay sababta keentay in dowladda Soomaaliya ay ku dhiirato inay gacan ku dhigto maamul goboleedyada dalka waxa uu sheegay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay aaminsan tahay in guud ahaanba dalka ay maamusho isla markaana wax awood ah aysan siinin maamul goboleedyada Daahir Maxamuud Geelle ayaa xusay in hanaanka federaalka uu yahay mid ay ku heshiyeen ummadda Soomaaliyeed isla markaana loo baahan yahay in la dardargeliyo laakiin aan la majaxaabin madaxda dowladda ayuu sheegay in aysan ku qanacsanayn maamul goboleedyada taasi oo bedelkeedu ay doorbidayso awood maqoonin madaxda maamul goboleedyada hanaanka federaalka ayuu xusay inay muhiim u tahay dadka Soomaaliyeed ee ku nool guud ahaan geeyiga Soomaaliya maxkamadda ICJ ayaa toddobaadka soo socda dib u eegis ku sameynaysa muranka badda ee kala dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya maxkamadda ICJ ayaa toddobaadka soo socda lagu wadaa inay dib u eegis ku sameyso codsi 3 geesood oo ay dalbatay dowladda Kenya kaasi oo dowladda Soomaaliya ay iska diiday codsiga Kenya ayaa ah in dib loo dhigo dhageysiga kiiska ilaa September 2020 madaxda maxkamadda ICJ ayaa arintaasi ka talagelisay dowladda federaalka Soomaaliya si cad ayna isaga diiday dowladda dhexe ee Soomaaliya ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya xiriirlaaliyaha qaranka iyo safiirka Soomaaliya ee Yurub ayaa goobjoog ka ahaa dhageysiga labada dhinac
Soomaaliya ayaana ku adkaysatay inaysan aqbalaynin dib u dhigid saddexaad iyadoona oo dowladda Kenya ay ku doodayso in labada bilood ee dib loo dhigay aysan ku filnayn. Soomaaliya ayaana dhinaceeda ku dooday in kiiska dhowr jeer dib loo dhigay Kenyana ay tahay cid ku xadgudubtay biyaha Soomaaliya. Maxkamadda ICJ ayaa toddobaadka soo socda go'aan ka soo saari doonta baaritaankaasi, waxaana sharciyaqaanada ay sheegayaan in ay adag tahay in Kenya hesho muddo kordhin maadaama Soomaaliya ay mowqif adag ay ka taagan tahay arrintan. sidaynu ka warqabno waxa dawladda Soomaaliya maxkamadda cadaaladda adduunka ay u gudbisay 5 sano waqti imika ku dhow dacwad ay ku difaacayso kagana doodayso xuduudda badda. dacwadaas meel fiican bay maraysaa. waxaynu ka warsugaynaa maxkamadda cadaaladda adduunka in go'aan cadaalad ku dhisan ay ka soo saarto. annagu mar walba dawladda Soomaaliya waxay aaminsan tahay in hab cadaalad ah oo ay maxkamaddu gacanta ay dacwadda ku hayso lagu go'aamiyo kiiska u dhaxeeya Soomaaliya iyo walaalaheen Kenya. waxaa noo yeedhay maxkamadda cadaaladda adduunka si aan uga jawaabno codsi ay soo gudbisatay dawladda Kenya oo ku saabsan waatii ay ogeydeen 9 September ayaanu u ballansanayn iyadoo aanu istiyaarinay oo aan maxkamadda u soo diyaar garownay looyaradeennii iyo dhammaanteenba ayaa waxa dhacday in maxkamaddu go'aan ay soo saartay maadaama Kenya ay codsatay inaanay diyaar ahayn waqtiga looyaradeediina ay kala dirtay sababayada u gaar ah awgeed. marka hadda waa tii loo ballamiyay 4 bisha. annaga wali go'aanka iyagu waxa uu yahay taageernahayna dib u dhigaas maxkamaddu adduunka iyada go'aanka iska lahayd dib u dhigtay oo 4 bisha ayaa go'aanka iyaga difaacayaga iyo ku talagalka iyagu yahay taa inaanu ka jawaabno fikirka iyaga dhiibno oo go'aanka Soomaaliya ay taagan tahay. waxaanu mar walba taageernaa kuna adkaysanayna inaanan aqbalahayn wax ka badan 4 November in la kordhiyo. dawladda Kenya waxay codsatay 12 bilood waxay ku sababeynayso iyo sababaha ay cuskanaysaa waa wax iyadoo yaala. kiisku waxa uu ku jiraa maxkamadda qaab socod ahaan iyo nuxur ahaanba in aan wax ka sheegno ma aha. annaga fikirkayagii dawladda aan isla wada ogni dawladduna ogtahay waa cad yahay waa la wadaagnay maxkamadda isagoo qoraala iyo isagoo dood ahba waa dhiibanay. waa inaan mar walba ka jawaabnaa dalabka ay maxkamaddu ina dalbato. annaga haddaan nahay dawladda Soomaaliya iyo dawladda Kenyaba waxa u yeedhay maxkamadda adduunka si labada dhinacba ay u dhageysato. waxay ku bilowday dhageysiga dhinaca Kenya iyo wafdigoodii iyo sharciyaqaanadkii dawladda Kenya oo doodii ay keeneen. haddana waxaa nala siiyay annaga inaan ka jawaabno. jawaabteedu waa gudbinay, doodeedu waa gudbinay. waxaan markaa ka dhursugaynaa maxaa ka soo bixi doona maxkamadda. annagu waxaan aaminsanahay mar walba inaan taagannahay 4 November waqti ku filan oo dhinac walba isku diyaarin karo. garmaqalkana la keeni karo in doodooda dhinac walba la yimaado inuu u bisil yahay. waa inaan maxkamadda cadaaladda adduunka ka dhursugnaa. annagu waa ku kalsoonahay mar walba. annagu mowqifkayagu waa 4 bisha November ayaanu ku adkaysano. kordhintii labaad ay ahayd dawladda Kenya 12 bilood bay codsatay. annagu waxaanu ku adkaysanay doodeediina ku jeedinay in 4 November aanu diyaar u nahay dacwadeeda inaanu maqalkayaga soo jeedino. go'aanka kama dambaysta ay maxkamaddu ka soo saarto. labada dhinacba waa la dhageystay. aan ka dhursugno waxa maxkamaddu ay soo saarto. guud ahaan intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa wararkii ugu dambeeyay ee channelka Gargaar Media Group. haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe saaro oo furo gambaleelka lana wadaag asxaabtaada kale.